السلام عليكم dhalinyaro waxaynu maanta mawduucaynu kaga hadli doonaa afar qodob oo muhiim u ah qofka dhalinyarta doonaya inuu ganacsi sameeyo. dhalinyaro badan caqabadaha waaweyn inta badan ka hor imaada waxay tahay inay ku adkaato sidii markay ganacsi bilaabanayay sii wadi lahaayeen. Inta badanna waxaad ogaataa ganacsigu inuu yahay sida badda oo kale, oo yacni waxaan suuqa uu yahay yacni sida badda oo kale. Haddii aanad dabaasha baran badda way kulakaysaa. Sidaas la mid ah haddaan ganacsiga baran waa yani xirfadii suuqa lagu gelayay suuqa uu kulakaya. Marka waxaa muhiim ah afartan qodob inaad aad aad yani wax ugu dhigataan oo aad note garaysataan. doon rabaa idinka ilaahay idin anfici doonaan. Qodobka koowaad waxuu noqonayaa in aad fikradda ganacsi ee aad la timaado aad baahideeda dhabta taa ogaato iyo gaabkaad buuxin karto. Marka inta badan ganacsiyada yani qaabka dhalinyaradu u bilaabaan waa qaab qiiro ku salaysan oo emotion ku salaysan taasoo ah yani hebel baa lacag sameeyay hebel ayaa lacag sameysay hebel kala ganacsi furay maxay baa furay lacag badan baa laga sameeyaa calculator buu dadka isku xisaabsanaya qofkii hadhow taladeetana waxaa adkaanaysa sidii uu u suurtagelin lahaa yacnihii waxa weeyaan visionkaaba yacni aragtidii doonay inuu suurtageliyo ahayd inuu lacag badan markiiba sameeyo. bas marka waxay ku kaliftaa dhalinyaro badan inay markiiba iska xidhan ganacsiga ka niyad jabaan oo ay u suurtageli kari weydeen inay sii wadaan oo ay waxa weeyaan cagaha dhulka ku sii hayaan. Marka qodobka koowaad waxa uu leeyahay ha ku furin caadifad ee waxaad ku furtaa caqli iyo aqoon. qodobka labaad waxa uu leeyahay waa in aad u diyaarisaa maskaxdaada yani iyo shakhsiyadaada yani inaad noqonayso qof ganacsada. tani maxay waxa weeyaan fursad kuu siinaysaa weynad bedesha habdhaqankaaga lacagta khasaarinteeda oo dhalinyaro badan ba waxay dhahdaan inta badan jeebkayga markay lacagta ku jirto ilaa iyo dhameeyo mooyaan hurdaba ima timaado ama maseexdaba. marka tan waa mid ka mid ah yani astaamihii faqriga ee qofku yani waxa uu horseeday inuu noqdo qof faqri. haddii aad markaad ku wanaagsaneyn maamulkii maareynta lacagta baro financial literacy-ga waa shay aad muhiim u ah maskaxdaadana u diyaari sidii waxa weeyaan mas'uuliyadda aad adigu u qaadi lahayd. waa markaad ganacsiga bilaabayso wax kasta oo ku saabsan ganacsigaasi adigu ku soo galaya haddaad khasaarto khasaare adigu soo galaya dad faa'iido adigu soo galaysaa wana mas'uuliyad boqolkiiba boqol ay tahay yani waxa weeyaan aad soo diyaariso. halka markaad shaqaale tahay shaqadaada aad soo qabsanayso bas hadday meeshaasi dintii haddii kaleba waxa weeyaan adiga aan waxba kaa gelin ee aad adigu waxa weeyaan waajibkaaga shaqoon ka soo baxayso. laakiin ganacsigu hadduu ganacsigu kaa dimo dhibaato xataa ku soo gaarsiin karaa yani maskaxda. marka muhiimaddu maxay tahay muhiimaddu waxay tahay u diyaari yani maskaxdaada مسؤولية يعني بقولك لقاك بهاي هاي إنها تقال. قضية استحاد واحد من اللي هي وإن لها يعني قف كون أحسن ماركتينج يسالسك. يعني إيبك إيو وحويان قرنا سقاك الله سميه سوقين. لو بدنا نحفظ الله بتحفظ الله آد مهمة وحنا كساعدية يعني إن تكسي وناسنات إن الضغطة أو الدويرت وداخله أو التوبرة يعني لقاطات قاعدته تصور بدل وحنا كل سهل دوتا inaad yani develop garayso qof kasta oo dunida wax weeyaan billionaire ama millionaire ama soo yani ganacsi ugu guuleystayna labadan xirfadood aad bay ugu wanaagsan. haddaba maanta teknolojiyad wax badan bay noo fududaysay waynu ku suurtagelin karnaa dhammaan waxa riyooyinkan leenahay iyo dhammaan yani waxyaalahan doonayna inaan qabanno iyo sidii doonayna inaan suurtagelino. haddaba si ay tani inaga suurta gasho maxaynu u baahanahay inaanu baranno labadan xirfadood. qodobka ugu dambeeya afraad waxaynu leeyahay waa in aad lahaataa xirfadda waxa weeyaan hogaaminta sidoo kalena aad noqotaa qof waxa weeyaan ganacsigiisa yacnihii ku saleeya cilmi ku saleeyo qorta business plan ama qorshe ganacsiyeed. tani marka aad bay muhiim tahay. marka hogaaminta maxay ku salaysaa inaad adigu naftaada aad maamuli karto noqon karto qof wax weeyaan naftiisa maamula sidoo kalena wax weeyaan dad hadduu hayadkaysan si wanaagsan u maamuli kara haddaba inta ku wanaagsaneyn halisteeda leedahay. sidoo kalena inaad document garayso oo waxa weeyaan qorshe ganacsiyeed aad sii qorato ka hor intaanad ganacsiga soo gelin waa mid iyaduna baraarugeeda wadataa oo kuu keeni doonta kuna horseedi doonta yani waxaan guusha ganacsiyada rabto. dhalinyaro badanna waxyaalaha lidda la dhacay waxa kow ka inay ku jahwareereen ganacsiga markay galeen sababtoo ah wax weyn qorshe ganacsiyeedku waa road mapka amba waa shayga kaa dhigaya inaad garanayso halkaad u socoto waxaad doonayso iyo waxaad diidayso yani kaa dhigaya. marka qodobka labada qodob ee saarana ee qodobka u dambeeya iyaguna aad bay muhiim yihiin. waxaa si gaara yani waxa weeyaan aan idinka dhigaya qodob konayso ah oo yani dheeraada faa'iidanayni ah inaad barataan oo يعني somehow wax ka akhridaan psychology ama fundamentalist psychology waayo minka fiil ku adaragteen la yiraahdo marketing psychology amba psychology suuqgeynta maadaama dad waxa weeyaan u adeegayso inaad barato psychology aad muhiim yahay waayo waxaad baranaysaa sida dadku u fikiraan sida yani waxyaalaha u xiiseeyaan sida waxyaalaha qaarkood uga xiisa dhici karaan
sidii isu bedbedelaan baahiyahoodu iyo sidii wax weeyaan si guudba ay u falceliyaan marka tan waxaad siin doontaa yani qaabka xataa suuqgeynta u samaynayso marka suuqgeynta noqoto qaybta advertisement oo kale xayeysiiska nidaamka xayeysiiska u samayn karta amba wax weeyaan content maskaxdooda saameyn ku yeelan karayo taasna aad bay muhiim tahay marka mid aad iyo aad ay u tahay inaad wax weeyaan aad akhridaan oo aad baadhaan oo aad iska dhistaan yani kalabtigeeda wax badan ba yani horseedi doontaa bonus bay noqon doontaa yani kor yani promote gareeya horumarka ganacsigeena dhammaantiin bakheer baa idiin soo rajaynayaa wixii su-aalaa yani comment-ka idiin soo weydiin doontaan haddii kalena waxa weeyaan tiktokayga si toos uga soo xidhmi doontaan oo tiktokaygu waa ka xagga hoose aan idiin soo dhigay idinka ilaahay bartaasaan live ka soo galaa inta badan content badanna waxa weeyaan kula wadaagaa يعني هي dhalinyarada kaasoo ku saabsan ganacsiga intiinaan aqoon waxaan ahay xamse saciid maxamed la taliye ganacsi oo inta badan dhalinyarada ganacsiga ka saaciday si ay u xalin lahaayeen caqabadahooda ganacsi kuwa doonaya inay bilaabaan ka dhisa wax weyn aqoonta ganacsiga waxaa iyagu imika diyaara laba kooras oo kooras ku saabsan yahay business startup-ka oo ka hadlaya dhammaan waxaad u baahan tahay saad ganacsigu bilowda guulaystaa iyo kalabaad oo ah kooras ka hadlaya sidaad u qori lahayd istiraatiijiyadda suuqgeynta yacni uu noqon lahayd qof leh xirfadda uu ku qoran karayo iyo aqoonta uu ku qoran karayo marketing strategy ama strategy suuqgeynta haddaad si gaar ah u baahan tahay si gaar ah wax weeyaan igula soo xidhiidh waxa weeyaan linkiga xagga hoosaan soo dhigay tiktokayga kaasoo waxa weeyaan whatsapp waxa weeyaan ku jiro aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu